ka qayb galay golaha wada tashiga qaran ii kala kiciya garoonka ii safta dad ii soo ururiya ma arkaysa macnihii wax la yaab leh hal noqoto ikraameeya kor ii qaada qof walba qofkiisa kor u qaada walaalayaal abaal ay gashada abaal ay gashada sidaas oo ku toogtamay ilaa haddana uu ku toogtamaya marka xildhibaanadii qaar ka mid ah sida Dr. Jilay iyo sida Xasan Cabdinuur iyo waxay ku yiraahdeen madaxweynuhu dhiiqadaas ma gali karno macnihii meel ma arkaysa Soomaali lagu burburinayo oo Soomaali macnihii lagu kala geynayo lagu kala dhantaalayo ma arkaysa inaad nooga qayb gashid anagana meeshaas sawirka uu nagula dhaco madaxweynuhu ceeb bay nagu tahay arintaasi macnihii haddaad bedeli kartid oo macnihii doontan aad ka boodi kartid raganimo waay because waan dhiiqaysanahay waana dhiiqoobi doonaa sawirkaasi inuu nagu dhaco ma rabno lafta gareen bay haddana iridda u taagnaayeen hawiye macnihii jikadiisay galeen dhammaanteen in nala dhaho madaxweynuhu midaasi annaga ceeb bay nagu tahay farsamada si kale u dhig sidaan macquul maahan xildhibaanada qaar sidaasay ku dhaheen Cabdicasiis lafta gareen soo ma ogid xildhibaanadu nafsadooda waxay fiirsanayaan kaarkooda waxay isleeyihiin qof walba markaa meeshan timaadid hadhowdii ceeb baa ku qabsan doonta shacabku way ku arkayaan tusaale Xasan Cabdinuur oo kale qadiyad baa lagu tabaa oo Soomaalinimo ah iyo midda Maylanimada ah ee Dr. Cabdirashiid Jilay oo kale qadiyad waxa lagu tabaa ma arkay Soomaalinimo iyo Maylanimo way jiraan kuwa ma arkaysa wajikaaki ah waayadii horena hawiye u saarna dawladii siyaad barana ma arkaysa macnihii meelaha ku jira la garanayo oo xildhibaanadan 77 digli mirfla sheeganayo waa la yaqaan kuwa waxa ku jira xataa markay Caydiid uu ku soo duulay Baydhabo iyo Boqol iyo Gaday iyo dhulkan oo macnihii naaga ah oo xildhibaana ah oo Caydiid barontiisa saarna oo macnihii raxweyn hal dila dhahay ayaa hadda xildhibaana ah magacyadooda waa naqaana macnihii waxay iska dhigdhigaan inaysan digli mirflaba ahayn af maxaa tirigay ciriiriyaan xildhibaano noocaas ah jira oo dumar leh dumarkana u badan kuwa waxaan ku dhahay Caydiid markuu ku duulay Boqol iyo Baay iyo dhulkan Caydiid baronta uu saarna la saarna oo alalaasay oo raxweynta hal dilo eelayda hal dilo dhahay oo macnihii geegi maridii aan nahay dhahay maantana waxay ku leeyihiin ama ma arkaysa hariin baan ahay ama eelay baan ahay ama hadamaan ahay ama leysaan baan ahay ama shanta caleemood baan ahay ama geladii baan ahay ama gasaare gudaan ahay ama gawaaweyn baan ahay ama waxaan ahay luwaay ama jilibli ama heladii dhahayaa jira marka waqtigaana sheegi doona iyaga isa soo saari doona marka kuwa noocaas way jiraan garoonka u istaagi doona balse laakiin xildhibaanada macnihii ilaashanaya kaarkooda xildhibaanada ma arkaysa macnihii qadiyadoodu inay gadmaysa aaminsan oo shacabka Mayland ay cabsan yihiin lafta gareen waxay ku dhaheen lafta gareenow saaxiibow dhiiqana gelisay haddaan dhiiqa ku jirnaa mid labaadna inaan noogu dartid tana ugu daran maalinta adoonan Baydhabo ka hadlin doontan waa ka dagay aadan dhihin dadka waxba aadan u sheegin 22 xamar aad ka soo degtid oo annagana garoonka aan ku istaagno oo aan ku camirno oo dadkoo dhan ma arkaysa sawir ay naga qaataan annagana sida kaarkaaga u gubtay baan u gubanaynaa waxbana ma ku soo kordhinayso magaalada Muqdisho in dad lagu soo dhoobo garoonkaasi maalintaasi adigoon dadkaaga aan ka dhisnayn oo dadkaaga macnihii kalsooni aan kugu qabin ma arkaysa hal maalin oo macnihii kor lagu qaaday waxaan la mid tahay gabar la aroosayo oo arooskeeda baabuur lagu galbiyay laakiin gurigeedu macnihii aanan alaab online oo jiif iyo wareeg iyo waxba aan online nolol aan online laakiin macnihii tiri oo kale anigu dhulkan seexanaya anigu ma arkaysa macnihii cadowga la iga jabiyo bas baabuur la igu geeyo cadowgan la jabinayaan fahmi waay cadowga la iga jabiyo bas baabuur magaalada lagu soo wareejiyay baabuurtii laga macnihii markii laga dajiyayna guriga waxba aan online halka baabuurta lacagta lagu kireynayo guriga ay ahayd inay irsaaqad dhigtaan inay ahayd in alaab ay adeegtaan ama jiif ay dhigtaan sidii oo kale la mid tahay bay dhaheen macnihii dadkaaga kalsooni kama haysatid dadkaaga kalsooni ma aadan gashanin hogaamiye dhan oo umadeeda tahay haddana macnihii waxaa leedahay garoonka Muqdisho hal maalin hal iga kala kiciyo jidadka la ii xiro ma arkaysa idaacadaha la iga sheego war midaasi waxay la mid tahay bay dhaheen ma arkaysa sida hadda macnihii gabadhii arooska dalbatay ee laakiin tiri anigu shilinka la igu bixinayo waxba guriga macnihii uma baahniye suuqa baabuur la igu kireeyo la igu soo wareejiyo gurigan wax ma yaalaan
sidaasay la mid tahay marka walaalayaal horta Abdicasiis lafta gareenna xisaabtiisa meeshaasay maraysaa 21 bisha macnaheedu ayuu rabaa xamar inuu ka soo dago qalqaal uu ku jiraa wuxuu shukaaminayaa xildhibaanada wasiiradu shukaaminayaa xasan sheekh uu la hadlay wuxuu yiri macnaheedu dad ii diyaari hal ay soo dhaweeyo way isla shirkaasi ayaan ku noqonaynaa marka xaaladiisi xasan sheekh maxamuud shirka khiyaanada uu wadaba waxay tahay wuxuu u kala jabiyay laba qaybood shirna wuxuu ka dhigay 15 bisha 15 bisha shirka uu ka dhigay waa shirka uu rabo in macnaheedu xisbiyadii bugta ahaa ee isagu uu samaystay ama ururadii bugta ah isagu uu samaystay sida Muxuudiin Darba Weyne iyo kuwa la midka ah ayaan shiriyay inuu dhaho rabaa fiiriya 22 kana wuxuu rabaa shirkii golaha wada tashiga qaran baan xamar ku qabtay inuu dhaho kaasoo kuwa isaga macnaheedu maqaasiinka ugu jira uu rabo inuu xaadir ka soo yeelo sida lafta gareen sida guudlaawe sida qorqor Axmed Madoobe iyo Dani ma imaanayaan marka intaasuu rabaa inuu ku camiyo ummadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud masiirkoodana macnaheedu uu ku marin habaabiyo beesha caalamka uu yiraahdo shirkii aad ii dirteen waan qabtay Kampala laga baaqsado si marka ma arkayse taasi aanay u suuroobin qoliyaha mucaaradka maanta warqad ay soo tuureen warqad ayay soo tuureen macnaheedu qaabka Xasan Sheekh Maxamuud uu wax u wado markay arkeen warqad bay soo tuureen warqadda maxay leeyihiin warqadan ayaan isku dayaynaa inaan akhrino marka war saxaafadeed taariikhdu waa 9 bisha Juun 2025 tixraaca warqadaasi waxa weeye ma saasa xariiqin eber afar xariijin 25 waayahay inkastoo farta ay shiilan tahay waxay leedahay warqadu madasha samata bixinta Soomaaliyeed waxay Juun 1 2025 soo saartay war saxaafadeed ay ku soo dhaweynaysay gogosha uu fidiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si dalka looga samata bixiyo xaaladda murugsan ee uu ku sugan yahay waxay madashu ku baaqday in ay gogoshu noqoto mid loo dhan yahay oo ay ka soo qayb galaan dhammaan madaxda dawlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayna noqoto madal wada xaajood siyaasadeed oo xal waara looga gaaro arrimaha masiiriga ah ee la isku khilaafsan yahay mucaaradku waxay leeyihiin madashu waxay u aragtaa kulamada uu madaxweynuhu qabanayo 15 iyo 22 bishan in ay yihiin kuwa uu taageero uga raadinayo jidkii uu ugu raadinayo jidkii uu horay ugu joogay ee sababay khilaafka iyo kala aamin baxa talaabadiisana waxay dhaawacaysaa niyad wanaagii ay madashu ku qaabishay gogosha waxayna ka niyad jabinaysaa shacabka iyo saaxiibada Soomaaliyaba rajadii ay gogosha ka qabeen madashu waxay ku soo gabagabaysay madashu waxay mar walba u taagan tahay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo sidii dalka looga samata bixin lahaa hubanti la'aanta siyaasadeed waxayna weli madaxweynaha ka dhawraysaa gogol wada xaajood siyaasadeed waxayna weli madaxweynaha ka dhawraysaa gogol wada xaajood ah oo loo dhan yahay si xal waara looga gaaro khilaafka siyaasadeed laguna mideeyo abaabulka iyo awoodda lagu wajahayo cadowga argagixisada ee duulaanka ku ah diinteenna dalkeenna iyo dawladnimadeenna mucaaradka iyaguna waxay leeyihiin annaga gogosha waa soo dhaweynay laakiin madaxweynow qaabka gogosha ay rabtid inaad u dhigtid sidii aan ku ballanay ma ahan sidaan u soo dhaweynay ma ahan waxaan gogoshaan u soo dhaweynay in loo dhamaado mucaarad iyo muxaafid la isku yimaado golo wada tashi iyo dawlad federaal la isugu yimaado
laakiin waxaad kala qaaday macnihi yani gogashii waa kala qaaday waa kala sariftay oo kala jabinaya mujada xasan sheekh daradan ku sheegay yani 15ka ayay ahayd Soomahan laba madal u dhigay marka 15ka madal ah kulan ah iyo 22ka madal ah 15ka madasha ah wuxuu ka dhigay meeshii golaha wada tashiga qaran saamilayda siyaasadda bulshada rayidka kulli ay hal gogol isugu imaan lahaayeen wuxuu ka dhigay ururada rayidka bulshada kuwa mucaaradka saamilayda inuu la fariisto 22kana golaha wada tashiga qaran inuu la fariisto golaha wada tashiga qaran xaguu jooga marka qorqor iyo gudlaawe iyo lafta gareen isaga maqsiin ku xirtay kuwaasi fartu ugu yeeraa Ahmed Madoobe iyo Danina banaankaas ay joogaan marka golaha wada tashiga qaran xasan uu shirka u qabanayo waa ayo taasi waa qodobka kale ee gogashan uu leeyahay 15kan qabanaya nimanka hotel jasiira hadaysan imaanaynin oo xasan sheekh maxamuud uu leeyahay ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ayaan la kulmayaa oo kuwa bugta isagu macnaheedu uu samaystay ah shirka uu qabtay maxay tahay marka waxa oo dhan waxay ku soo dhamaanayaan futile afka ingiriiska uu yiraahdo hal bacaad lagu lisay wax shaqeynaya maahan marka walaalayaal ma arkaysa macnaheedu horta mucaaradka xajadiisana meeshaas ay maraysaa waxaan doonayaa in aan u noqdo Mongab dhawaaqiisii ugu horeeyay maantay imtixaanaadkii uu furan yahay uu yiri Soomaaliya 100 goobood in ka badan ayaa imtixaan Muqdisho loo fariistay laakiin muxuu ka dhawaajiyay wuxuu hoosta ka gashaday dhammaan goobaha waxbarashada dadka ay degan yihiin laga guuro waayo ma dawlad baa loogu adeegayaa maya ninkan waxaan ku sheegay ma arkaysa dhanka Sheekh Shariif ayaa soo birsin daareeyay Turkiya soo riixay laakiin nimankan damul jadiid waxay doonayaan inay ku shaqeystaan aan ku dhahay Amirna wuxuu diiday in lagu shaqeysto 6 bilood uu joogay fawday kaga saareen waliba Aba Khalifa iyagoo dhahaya soo ururi marka ajuusatri ayayda ka biloway mugdi koow oo shabkax gudoomiye Mongab talaabadii ugu horeysay uu qaaday maanta waxa weeye in xarumaha macnaheedu waxbarasho dadka shacabka ay degayn ay ka baxaan ma xuma macnaheedu in xarumaha dawliga ah goobaha waxbarashada shacabka Soomaaliyeed in loo baneeyo way fiican tahay laakiin haddii loo baneeyo sooyaalka anagoo eegayna ma shacabka Soomaaliyeed baa loogu shaqeynayaa aaway xarumihii hore ee shacabka Soomaaliyeed laga barbixiyay habar gidir baa u badnaatay maxaa lagu sameeyay sawtan ganacsato laga gaday sawtan cash laga dhigtay sawtan lacagtooda dhulalkaasi qaarkood Switzerland iyadoo la tahriibayo xasan sheekh maxamuud lagu qabtay oo atooraha lugeeyo uu qabsaday oo adduunka joornaaladii oo dhan lagu qoray 260 milyan maanta Soomaali uma baahna miya Mareykan sootii u yaabay Soomaaliyadan ina tuugsanaysa dawladan ina caawiyana leh haddana 260 milyan oo dollarka Mareykanka ah in ma arkaysa macnaheedu Yurub lagu qabto madaxweynihii oo wada tahriibinaya maxaa loo fasiri karaa aqliga bani aadamka wuxuu diiday waay marka ma arkaysa macnaheedu dhulkan shacabka laga kiciyo ma xuma laakiin dawlad ma loogu adeegayaa shacabka Soomaaliyeed ma loogu adeegayaa caruurta Soomaaliyeed waxbarasho bilaash miyaa la siiyaa cashuur way qaadaan xukuumadii siyaad bare waxbarashada bilaash ay ahayd iyaga qiraay laakiin bilaash bay waxbarasho ku siiyaan may lacag bay ka qaadaan akoonna lagu shubtaa marka daarahan shacabka hadda ka kaca la leeyahay Mongab wali wuxuu yiri si sharfoon uga baxo nabdoon macnaheedu baxa waay hadda bixi diidaan ka tarabiilkii iyo dhishikii uu imaanaya waxaan anigu sameeynayo maahan maantu ka dhawaajiyay Mongab aan isweydiino marka shacabka Soomaaliyeed ma loogu adeegi doonaa shacabka Soomaaliyeed ma arkaysa macnaheedu xiriyahaasi intoo la dhiso la hagaajiyo caruuraha Soomaaliyeed agoon